إن شاء الله تعالى waxaan jecelahay inaan imika ku soo dhaweeyo dhakhtarka maadaama sheekhu ka hadlay xukunkiisii iyo mashaakilka uu leeyahay iyo waliba xalka lagaga gudbayo ee qofka marka waxa weeyaan uu kaga gudbi karo دكتورك إن شاء الله تعالى كسر دوينيا فليتفضل دكتور محمد عبد قبوس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة دي أرنت لجها اللي وحيلة ده هاي وتشيب بدن أو سامين تدا أيادو بلارين dhammaantoodna waxaa taabtay sheekh dirir baa taabtay waad garan kartaan marka caafimaadku wuxuu ka mid yahay waa hal dhibic wixii uu taabtay de marka hal dhibic kaliya ka weeye wuxuu dhaqaale yeelay wuxuu qoys yeelay wuxuu qaran yeelay wuxuu qofka yeelay wuxuu waqtiga yeelay wuxuu karaamadii sharafti yeelay waxaasoo dhan ayaa quruxda hadalku maaragtay ku dheehana wixii oo dhan sheekhu haduu yiri wax yahay baan ugu marka waraaqayga waa iska dhigo halkan baan iska dhigo waxaan diyaarsaday baa isku beegmay oo isku wadano isku noqday magaciis haddii se aan waqtigan oo ilaalinaya caafimaadka kaliya laba eray kaliya ka yiraahdo oon ka tanasulo baaxadii ballaaray waxa weeye arrimahan maandooriyaasha ama mukhadaraadka qaarna waa qaar cusub oo hadda bilaabmaya oo hadda xadka maarta lagu cararayo qaarna waa qaar bulshada si baaxad leh uu saameeyo aad bay marka u kala duwan waayo kuwa baaxadoodu bulshada dhan ay saameysay caadadii dadkay ka mid noqonaya wax caadi bay u arkayaan dhibtiisii iyo dheeftiisii iyo wixii oo dhan baa maqnaanaya marka jaadku waa xubinta koowaad ee aad bulshadeenna u saameysay oo tuulooyinka dalka مثل الشيخ واكيكو شيغي haddaad tagtay habeenkii waa shidan yihiin maalintii oo dhan waa cidla xoolihii waa deecan yihiin wax walba wada cidlo wata dhirta la gubayo wata haragala wata dhaqaalihii oo dhan ka hadlay geedkan maxaa jeclaysiiyay dadka baan yar ka oranay geedkan disaadugtiin wuxuu hoy u ah bixitaankiisa waa geeska Afrika iyo gacankan Carbeediga inkastoo ilaa South Africa iyo Mozambique uu gaargaaro laakiin xuduntiis waa halkan dadka cunana waa dadka ku dhaqan halka markii dadkaasi qaxooti noqdeen ee caalamka ku kala firdheen waxay qaateen inay jaadkii geeyaan dalalkii ay degeen muxuu caalamku markaa muddo dheer markuu qaxootiga hayay waxaana fududeeyay oo ka hadli doona waxa weeye gaadiidka xoogga ordiga wadooyinka quruxda badan dayuuradaha oo waqti dhaqso ah ku geyn kara meeshii loo baahna jaadka waxa ku jira laba macdan laba maado labada maado waxba si dhakhtarnimo magacyadoodu sheegi maaye mid waxay ku jirtaa geedku marka uu cusub yahay ee laga soo jaray geedka laantu midda labaadna taas ayaa isku bedesha ta labaad markii 48 saacadood wixii ka badan ay gaarto tan khatarta ah ee geedka dadka jeclaysiisay ta kalaba way leedahay isla arintee waa ta koowaad ee katinoonka loo yaqaan macdantaas ilaahay jirkeena wuxuu u abuuray
in xaalad adag markaan la kulanno haddaan libaax halkaa iga soo horbaxo in dareenka aan qaatay khatarta aan qaatay iyo wixii kale lamida jirkayga dheecaamo ku jira ay sii dayso maskaxdu iyo xubinadu sii daayaan oo jirku isku diyaariyo marxalad adag oo degdeg ah sidaan uga badbaadi lahaa marxaladaas ama aan cararo ama aan iska cisho ama aan gabado xaaladaas cusub dheecaamadaas ku soo yaacaya jirkayga ayaa isiinay macdantani waxay dhaqaajisaa macdanahaas stresska ilaahay u sameeyay qofku inuu ay dhaqaajiyaan ayay iyadu adoon dhibaato ku hayn adoon libaax arag adoon mushkilo kale arag ayay markaad cuntid marka uu yiraahdo su kharaarku haygu baxay markuu dhiiga gaaro ayay waxay dhaqaajinaysaa macdani qofka laba meeloodba weerarkiisa tagaya mid waa jismiga iyo maskaxda wadnihiisa haddii la garaaco xoog buu u shaqaynayaa wuxuu ka baxay xaaladii deganaanshaha xaalad colaadeed buu galay oo wadnuhu xoog buu garaacaya haddaad dhiigga cabirtid xaaladii deganaanshuhu ka baxay oo dhiiggii kor buu kacay iska dhaaf wax kale indhaha bu'da yar ee ku jirta intaanu fariisan haddaad eegtid markaan dambe ee marqaanku gaaray way furmayaan xaaladaha colaadaha iyo stress aad bay isku furayaan dagaalka ay isku waxweynayaan marka wadnihii baa xoog isku garaacaya dhiiggii baa kacaya indhihii baa furmaya feejignaantii qofka ayaa kacaysa oo qof feejigan ayuu noqonayaa oo xaggii hurdo iyo dareenkii wuxuu ka kacayaa caadiga oo dareen wuxuu u gudbayaa inuu qofku marxaladan uu soo jeedo qofka fikirkiisa badanaya sheekadiisa badanaysa hadalkiisa badanaya wixii caadiga oo dhan ka soo wada kacaya waxay kala weeraraysaa macdantaasi qaybta ruuxa qaybta dhimirku markay ka kaliya weerari lahayd qofku xaaladan uu ku jiro way dhibi lahayd laakiin qaybta kale ayaa u qurxinaysa waa qaybta maankii baa u qurxinaya xaaladan uu galay ayaga waxay siinaysaa iyadoon tan ilaa u siinaysaa inuu qofku u arko xaaladu raalli ku yahay xaaladu ku maqsuudsan yahay xaaladu ku faraxsan yahay xaaladu maaragtay mashaakilaadkiisa xalkeeda ay u fududaanayaan xaalad noocaas waa qaybta marka dambana u gudbaysa inuu qofku garaadkiisii uu halkaa ka sii koro oo waalida iyo dhibaatada aan leenahay aan ka hadli doono jaadka markii la soo jaro caleenta cusub waa in lala cararaa sida ugu dhaqsaha badan waa in qofkii cuni lahaa loogu geeyaa waayo waxaan idin 48 saac wixii ka dambeeya waxay isku bedelaysaa mid itaal daran oo ka tayin leeyahay gaarigu sidoo orday waad arkaysaa inta waxaa lagu shubayaa biyo si aan caleentu si dhaqso ah bacbaa lagu xirin muus baa lagu xirin talaagad baa la gelin waa la cararin waa la intaasoo dhan waxaa la raadinayaa taa hore inaanay isku bedelin ta dambe ee uu qofkii dhaqso cuno xaaladda noocaas qofku mar qura markuu cuno waa mar laakiin markuu noqdo qof caadaysta ee maalin walbaba jirkiisii iyo maskaxdiisii iyo damiirkiisii ay sidaa u kacaan energy fara badan ayaa ka baxaya waxaana yimid caafimaad darradaan soo socno ayaan soo kuweeyay soo ururinay midda koowaad cuntada nadiifka aan beeraheena ka beerano
ee saladkaanu naqaan ee fitamiinada badan ay ku yaalaan ee beer qurux badan ka baxday ee aad og tahay gacanta ay soo taabatay guriga markaad tegaysa iga soo meyr baa tiraa isaga 35 gacmood ayaa eegaya xirmadii oo midba taaban oo waxay gacmahaasu jeermis iyo dhib wadaan aadan midna la socon marka intaan isagaba la gelin dushiis waxaa dhici kara in wasakh fara badan ay saaran tahay kulkan ha cuna maba dhehene waxaan oran lahaa iska meerad liisa haddaadan wax kale aadan awoodi karayn iska meer waad arki doontaa markaad miirtidna waxa ka daadan doona ee wasakh iyo qashin ayaad arki doontaa haddaan se u gudbo jaadka dhibaatooyinkiisa waxa ugu horeeya ilkaha laga bilaabo labada qowlal afka ciridka caloosha meel allaala meeshu sii taabto wuu xoqayaa nabaruuna ku samaynayaa ama gastric u bixi ama stomatitis u bixi ama waxaa doonto u bixi aakhirka dambana ilkuhu marka hore hadday madoobaadaan marka dambe way daadanayaan habeen dhaweetaan waxaan tegey mid yaroon dhalay anoo qaaday dhakhtarka ilkaha waxaan ugu tegey keligay mooyaane wada dumar fadhiya meesha marka waxaan isiri ma sonkorta aad u cunaan iyo maxaan dhahaa nanaca iyo chocolate-ka waxaa miyaa dumarka ilkaha ka galay qoftii ag joogtaa waxay tiri maya iyaku ilkahooday xanaanayeen raggu jaad bay siisteen ilkahoodii jaad bay siistaan ya macnaha xataa awooday ku tagaano eligii daba qabtaan ma leh waayo waxaa xukumaka waxaa kale oo ah dhib wuxuu joojiyaa rabitaanka cuntada marka qofkii waxaa ku dhacaya nafaqa darrada oo dhanna waxaad ay salka ku haysaa waxaa laala wixii xanuun ahaa ee difaaca jirka ku hayay meesha oo beerka ugu horeeya magaciisa wuxuu leeyahay oo kale calool istaag waxaan taa kaga soo gudbaya labada qaybood ugu muhiimsan caawa damca halka inaan ka sheego intaas waa intaas ka yar waxa weeye dalkeena waxa ku batay waxa loo yaqaano stroke ama valg ayaa ku batay dalkeenana waxa ku badan waalida muxuu jaadku qayb ka leeyahay qaybta uu doorka uu ka leeyahay waa maxay qofka jaadka cunaa waa sigaar yacab haddaanu sigaarka cabin waxaa saaxiib la ah mid kaloo jaad cunaya oo sigaarka buufinaya oo sanka ka cabaya marka mar walba jaadka waa cabaa ama sanku sigaarka mar walba sigaarka waa cabaa ama sanku ka cabaa ama isaga buufiya sigaarka iyo jaadka oo aan idin sheegay muddo ayuu wadnaha garaaciisa iyo dhiigga kicinayay aakhirka dambe wadna xanuunku iyo dhiig karku waxay ka mid yihiin afarta shay ee ugu waaweyn ee vaaligas keena markii subaga iyo macaanka laga tago saddexdii kale halkan bay ku dhayin xididada xumaanaya wadnaha garaacaya daalaya xinjiraa sameysmaya xididada xirmaya ama wadnuhu ku dhufanaya ama maskaxdu ku dhufanaya muddada dheer ee wadnuhu garaacayay aan idin sheegay shaqo aan loo dirin ayaa mar walba la gelinayay oo daalinaysa oo curyaaminaysa marka waa qayb weyn baaliga habeen dhan in laga hadlayo ku fiican yahay laakiin waxaan rabaa kaliya inaan ka tuso inuu door ku leeyahay baaligan faraha badan ee dalkeena aad iyo aad ugu soo batay hadda inuu qayb ka yahay waxaa kaloo vaaliga dawada ugu weyn ee dunidu maanta aliftay waxa weeye qofku inuu exercise sameeyo socod sameeyo socodku dawo kasta dhakhtar bixiyo isaga dhigana u ah budnaanta koowaad
isaga wax allaala waxaad cuntay waa mudnaanta koowaad inuu shiido goormuu soconayaa saacad walba waa fadhiyaa salaadiina waxaa kaga dara socodkiina waa iska daay halkaa ayuu markaa socod la-aan sigaar fadhi iyo cunto xumidii aan ka hadlaynay isku wada raacaya waalida anoon gelin waxaa kitaabta ay qorayaan hooyaa imaanaysa shaqada waxaa ku badan inankii oo silsilad ku xiran bay wadaa waxaa ku badan hadalkooda markuu jaad ka dhadhamiyo ayuu baxaa magaalada Hargeysa kaliya haddaan ka hadalno waxaan hubaa qof kastoo idinka mid yahay in baaxadda waalida ee taal uu garan karo inta guri ay maanta dad waalan ay joogaan ama circiraadeen waxaad arkaysaa inay dalkii ku soo bateen guryo loo sameeyay dadka waalan in lagu hayo oo aanan lahaan jirin dalkaan aanu lahaan jirin dadkaan aanan lahaan jirin tiradii intee ka bateen macnaha iyaduna waa maxay sidii markii hore bay stroke wadnaha garaacaya oo u gaarsiiyay marka dambe wadnuhu inuu fariisto ayaa tanna maskaxdii la dhaqaajiyay laba qaybood buu kala baxaya mid qofka ayaaba hidda ahaan u nuglaa markii horeba mana waala laakiin wuu nuglaa darbaxadii bay sii raacinaysa midna qofku hidda uma lahayn laakiin sidii wadnaha maskaxda la kiciyay ee intaas oo goor kicis la geeyay ayaa bacdan iyo shakigan iyo waalidan iyo buuqan marka dambe galaysa marka wixii kale aan oran maayo labada xanuun ee maanta ugu waaweyn dalka ee baaliga iyo xanuunkan waalida waxaan anigu aaminsanahay qayb libaax buugtana ku qoran qayb libaax inay ka qaataan wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh xalkii waxba ku dheeraan maayo waa kaa laga sheekeeyo waxaan xalka ku dari lahaa xalku wuxuu miro dhal noqon karaa xalka sheekh diriir uu ka hadlay wuxuu miro dhal noqon karaa kolka xukuumaddu ay siyaasad cad ciribtirka muqaadaraadka ay ka yeelato wassalaamu calaykum warahmatullahi